السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا دمان أصحاب شرفت اللوات سلامتين بعد السلام كسودو هذا القرصور FX Academy نحرضنا إن سمينا إن شاء الله ويكان سو صعدة oo ay taariikhdu ku beegan tahay 25 bishii shanaad 2025 maalinkii Isniinta ah sida caadiga ah suuqa forex maalintaas ayuu inoo furmayaa. waxaan rabnaa inaan isla fiirino insha Allah lacagaha wiigaas aan rabnay inaan ka shaqeysano wiiga soo socdo sidii wiigi la soo dhaafay aan ugu faa'iideysanay ardaydan ay ugu faa'iideysteen intooda badan lacagaha insha Allah lacagaheena wiigan waxaan rabnaa dhowr lacagood ilaa iyo 5 lacagood inaan targetkeena aan ka dhigano insha Allah aan ilaashano ay ugu horeyso ama ay inoo hogaaminayso lacagta loo yaqaano euro USD sida caadiga ah markii lacagta aan taxliilinayno waxaan ka soo bilaabeynaa time frame weyn ee loo yaqaano 4 hours-ka ama daily-ga si aan u soo ogaano xaaladda lacagta tan ay ku sugan tahay. bal haddii laakiin aad ka qaadanayso entry 1 hour-ka waa okay 4 hour-kaaga waa ku fiirin kartaa. bal aan ka soo bilaabno insha Allah daily-ga ayaan soo fiirinaynaa. lacagtan daily-ga markaan soo fiirino insha Allah daily-ga waxaan ku eegi doonaa maxaa la yiraahdaa xaaladda bal lacagta tan ay ku sugan tahay. saan u jeednaa lacagta tan waxaa inoo muuqato in ay ku jirto wax loo yaqaano ranging ama consolidation ama sideway wax loo yaqaano hadba saad u taqaanaan micnaheedana waxaa waaye waxay samaysaa wax loo yaqaano waxay u dhaxaysaa laba trade line dhexdeeda ayay u dhaxaysaa haddii bal aan isku qabano trade line-adan bal fiiri waxay u dhaxaysaa laba trade line dhexdooda tara waxaa loo yaqaanaa consolidation ama sideway. okay markii aan ogaano marka maxay inoo samaysa lacagta tan maxay inoo samaysa wax loo yaqaano reversal patterns oo ka mid ah patterns-yada suuqa kala wareejiya ee loo yaqaano double top. bartaas ay waxay ka samaysaa lacagtan double top ay bartaas ka samaysay. double top-kana waxa uu ka mid yahay waxyaalaha reversaliska ah ee suuqa kala wareejiya. marka aan ku base garayna time frame-ka ka yar daily-ga oo ah 4 hour-ka si aan u ogaano bal lacagtaas in ay si fiican u samaysay waxa loo yaqaano double top-ka. okay saad u jeedid waxay si sax ah u samaysay double top-ki lacagtana waa ay dhaqaaqday oo sal ay aaday. markii double top ay samayso lacagta inta badan waxaa lagu yaqaanaa inay dhaqaaqdo ay dhaqaaq fiican oo sal ay samayso maadaama double top-ka uu ka mid yahay waxyaalaha reversaliska sameeya ama suuqa kala wareejiya. okay marka lacagta tan maxaynu ka filaynaa wiiga tan inay ina siiso amaba aan ka helno. waxaan ka fili doonaa insha Allah bal hadda ayaan isla ogaanaynaa maadaama double top ay soo dhaqaaqday haddii bartaas aanan ka soo qaadan entry aanan ka qaadan soo samaysay impulse hadda waxay geli doontaa wax loo yaqaano correction kadibna waxay samaynaysaa another impulse. bal aan ku base garayno marka time frame-ka yar si aan entry bal aan ugu raadsano lacagta tan insha Allah. okay maxaynu hadda u jeednaa lacagta tan inay inoo samaysay dhaqaaq sidoo kalena ay hadda ku jirto correction. hadan markay correction-ka dhamaysatana insha Allah aanu ka rajaynayno in ay dhaqaaqdo dhaqaaqii hore mid la mid ah. sidoo kale aynu calaamaysano dhaqaaqan bal aynu calaamaysano correction-ka ah si aan u ogaano hadhow waxa ay samayn doonto. sidoo kale bartaas baan dhiganaynaa insha Allah waxay samaynaysaa wax loo yaqaano bullish flag ayay samayn doontaa insha Allah. sidoo kale lacagta tan meeshaan waxay kasoo samaysay wax loo yaqaano ascending channel. ascending channel-na waxa uu ka mid yahay waxyaalaha reversaliska ah ee suuqa kala wareejiya ayuu ka mid yahay ascending channel-ka. okay saad u jeedid ascending channel-ki waa ay soo jabsatay hadda waxay ku jirtaa inay soo laabato kadibna ay soo retest garayso meelahan si aan u ogaano meesha ay ka laaban karto. marka waxaan isticmaalaynaa VIP-ka ayaan isticmaali doonaa Fibonacci-ga anagoo kasoo cabiranayno lugta salka meeshay kasoo dhaqaaqday iyo meesha ugu hooseysay ay gaartay bartaan ayaan dhigan doonaa si aan u ogaano meesha ay kasoo laaban doonto anagoo ku base garaynayna
golden area ama golden zone. Okay, meeshan waxaa inoo muuqata golden zone inuu ku aadan yahay bartatan, golden zone inay ku aadan tahay bartatan. Then vipka waan iska tuuri doonaa. Markaan tuurno waxaan ka sugaynaa lacagta tan inay kasoo laabato golden zone area ama bartatan ay kasoo laabato. Marka intrigeena wuxuu inoo noqon doonaa insha Allah, intrigeena waxaan ka dhigan doonaa golden zone area. Intriga koowaad waxaan soo dhiganaynaa 0.50ga, targetkeenana waxaan ka dhiganaynaa insha Allah bartatan ayaan ka dhigan doonaa targetkeena, meeshaas ayaan ka dhiganaynaa. Okay, sidoo kalena anada intriga kale inteen ka dhiganaynaa, waxaan ka dhiganaynaa bartatan. Golden zone-ka waa 0.6ka, bartaasaan dhigan doonaa insha Allah. Meeshaas ayaa waxaa ku aadan golden zone area. Then waxaan ka rajaynaynaa lacagtan inay soo gaarto golden zone area ay gasho large correction wax loo yaqaano, large correction wax loo yaqaano inay gasho, kadibna bartaas ay kasoo daadato. Sidoo kale waxaa intriga dhigan kartaa meesha tan ay ku aadan 0.50ga ayaad intri soo dhigan kartaa, targetkaagana isla bartaas ayaad dhigan kartaa. Target 1 iyo target 2 insha Allah isbuuca ayaa waxaan ku falanqeyn doonaa maxaa la yiraahdaa meelaha lacagtaas ay noo gaari doonto. Gurubyada ardayda ayaan soo dhigi doonaa iyo asalka saxda ee meesha la dhigto iyo intriga saxda ee meesha la dhigto insha Allah. Laakiin waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay sameyso dhaqaaq lamid oo aad u fiican inay inoo sameyso insha Allah. Ayaan ka rajayn doonaa bartaas. Targetka koowaad bartaas ayuu noo noqon doonaa, bartaas ayaan ka filaynaa insha Allah. Targetkeena koowaad lacagtan euro USD na waxaan ka sugaynaa isbuucan inay inoo daadato oo ay inoo soo gaarto bartatan, inay inoo soo gaarto insha Allah. Target 1 markaan ka qaadano, target 2 na aan ka qaadano insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Lacagta labaad balaan isla fiirino insha Allah. Lacagta labaad isla fiirino. Lacagta labaad waxay tahay AUD NZD. aan rabno isbuucan insha Allah iyadana inaan ka faa'iideysano. AUD NZD waxaan kusoo fiirin doonaa wax loo yaqaano 4 hour-ka si aan u ogaano time frame-kan xaaladda ay iyadana ku sugan tahay. Waxaan kusoo fiirin doonaa time frame-keena. Waxaa inoo muuqata iyadana in ay ku sugan tahay xaaladii euro USD oo kale inay ku sugan tahay. Daily-ga ayaan ku fiirin doonaa, daily-ga ayaan ku fiirin doonaa insha Allah. Daily-ga ayaan tageynaa si aan u ogaano xaaladeeda iyo iyadana waxa ay sameynayso insha Allah. Okay, AUD NZD maxay ku sugan tahay marka? AUD NZD saad u jeedaan iyadana waxay sameysay wax loo yaqaano double top, wax loo yaqaano ayay inoo sameysay. Bartaan ayay inoo soo sameysay double top, bartaas ayay inoo soo sameysay. AUD NZD iyadana waxay sameysay double top ayay soo sameysay, bartaas ayay inooga sameysay. Double top markay sameysaan dhaqaaq ay soo sameysay waana daily-ga. Marka waxaan ku base garaynaynaa time frame-ka yar ayaan ku base garayn doonaa insha Allah. Time frame-ka yar aan fiirino 4 hour-ka. Then 4 hour markaan tagno waxaan fiirinaynaa 4 hour-ka insha Allah iyadana anagoo ku base garaynayno taxliilinteena oo aan isticmaali doono trade line-keena. waxaan sameynaynaa insha Allah waxaan sawiran doonaa xaaladda guud ee iyada ku sugan tahay meesha ay double top-ka inaga soo siisay. Meesha ay double top-ka inaga soo siisay ayaan sawiranaynaa insha Allah. Trade line-keena inoo soo qaad, bartaas inoogu qabo, bartatan inoogu qabo insha Allah. Kana barta cirifka loo saaraa. Then double top-ka waa kaas, bartaas ayaa inaga siisay top 1 iyo top 2 kadibna way soo daadatay. Saa u jeedidna meeshan waxay ka sameysay wax loo yaqaano ascending channel, wax loo yaqaano ascending channel ayay inta ka sameysay. Ascending channel-ka waa kaasa aan isku qabano. Ascending channel-kaas ayay bartaa inaga siisay. Then ascending channel isagana waxa uu ka mid yahay reversal patterns-ka oo suuqa kala wareejiya. Waa kaasa ascending channel-kii way soo jabsatay, correction ayay gashay, weli haddana soo dhaqaaqday, correction kale ayay ku jirtaa. iyadana waxaan ka filaynaa insha Allah inay correction-ka ka soo baxdo, large correction-ka kadibna waxa inooga banaan janis kale oo ah buy inaan ka qabsano kadibna aan u soo aadno maxaa la yiraahdaa sell. Bal aan fiirina janiska ka banaan mar walba time frame-ka
weyn higher time frame-ka ayaa wanaagsan inaad kusoo sawiratid trade line-kaaga si time frame-ka yar markaa imaadid uu kugu qurux badnaado. time frame walba imaadidna waxaa la rabaa inaad update garaysatid insha allah. aad ujeedaan ascending journal-keen quruxda badnaa waa kaasa uu inoo diyaarsan yahay. idan waxaan samayn doonaa maxaa meesha inooga muuqda marka. that's the question aan rabno inaan isla falanqeyno maxaa meesha inooga muuqda. then mar walba waxaa la rabaa aad time frame imaadid inaa waxaa loo baahan yahay aad update garaysatid maxaa la yiraahdaa trade line-kaaga. waxaan sameynaynaa another trade line ayaan sawiran doonaa insha allah. another trade line ayaa sawiran doonaa. bartaas ayaan ku sawiranaynaa saa ujeedid. kalarkana cadaan inooga dhig. trade line-ka waxaa la rabaa labada cirif inuu isku kaa qabto, cirifka kan iyo cirifkaas inuu isku kaa qabto. then markaad samaysatid waxaan sameynaynaa waxaan fiirinaynaa xaaladda bal hadda uu ku sugan yahay. waxaa inoo muuqata inay samaysay patterns kale oo yar loo yaqaano double top-kii oo kale inay samaysay. then double top-kii markay samaysay waxaan fiirinaynaa lacagta tan barta ay kasoo laabanayso anagoo haddana ku base garaynayno VIP-keena ama Fibonacci-geena anagoo ku base garaynayno. waxaan fiirinaynaa dhaqaaqan buy-ga ayaan qaadanaynaa, meesha uu gaaray ayaan ku celinaynaa. kadibna VIP-ka waxaa la saaraa dhaqaaqa buy-ga ah iyo meesha ugu sareysay iyo meesha ugu hooseysay. kadib waxaan ogaanaynaa golden zone area. golden zone area waxaan idin ilaaday waa 0.5-ka ama 50-ga sidaa u taqaanaan 0.618-ka. kadibna VIP-ka waa iska tuuraysaa haddii aad calaameysatid. waxaan fiirinaynaa marka saad ujeedid VIP-ki ayaa waxaa lagu soo sameeyay retest kadibna way dhaqaaqday. meeshan waxaa nooga muuqdo pattern aad u qurux badan oo kamid ah patterns-yada reversal-iska sameeya ee loo yaqaano head and shoulders. waxaa inta ugu jeedaa garabkii koowaad inuu inta retest ku sameeyay kadibna uu dhaqaaqay, madaxina kaas uu yahay oo haddana dhaqaaqay. saad ujeedid barta tan afan aan sawirka idinku celiyay hal mar. head and shoulders-ka waa kana garabkii koowaad, madaxii waa kaasa, garabkii kalena inta ayaan ka filaynaa insha allah. kan garabkaan soo toosiyay waa kana garabkii kale ayaa socda right-ka ahaa. garabkii kale waxaan ka filaynaa inuu bartaas soo retest gareeyo 0.618-ka ah. markuu inta soo retest gareeyana waxaan sugaynaa inuu dhaqaaqo uu aado buy ilaa iyo uu kasoo taabanayo trade line-kaas. meelahan ayuu correction ku galaa ilaa uu trade line-kaas kasoo taabto. iyadan lacagta tan waxaa noo banaan janis, waxaa nooga banaan sell ah ayaa inooga banaan insha allah. iyadana hala waardiyeysto buy aan iraahdo janis buy ayaa inooga banaan. dhaqaaq fiican aan ka heli doono insha allah. waxaan sameynaysaa lacagtan iyadana meel ku qorta hala calaamaysto. lacagahan insha allah isbuuca aan ka faa'iideysanayna kamid tahay. lacagta xigta bal aan fiirino. lacagta xigto waxay inoo tahay euro CHF. lacagta xigto aan qaadan doono waxaa waa iyadana euro CHF ayaan isla fiirin doonaa. euro CHF iyadana isbuucan waxay kamid tahay lacagaha aan rabno in aan isbuucan insha allah aan ka sameyno waxaa la yiraahdaa aan ka shaqeysano ama aan trade gareyno. aan rabno inaan lacag ka sameyno insha allah. waana lacag aan ku tashanayno isbuucan inay dhaqaaq fiican inoo sameyso. then waxaan fiirinaynaa daily time frame-kan tagaynaa. mar walba daily-ga inaad kasoo bilowdid aad ayay u muhiim ay u tahay. daily time frame-ka markaad tagtid waxaa fiirinaysaa xaaladda guud ee lacagta ku sugan tahay. waxaa inoo muuqata lacagtan inay ku sugan tahay xaalad la mid ah xaaladihii oo kale laakiin ay ka duwan tahay because of lacagtan waxay samaysay trade line-keena markaan sawirano way jabsatay. waa ujeedaan oo lacagtii way jabsatay retest ayay ku samaysay. waxaa kuu muuqata lacagtan inay dhaqaaqi doonto ay aadi doonto buy. marka waxaan ku fiirinaynaa insha allah trade line-ka yar maxaa la yirahdaa time frame-ka yar aan iraahday ayaan ku fiirin doonaa. time frame-ka yar aan ku fiirino 4 hour-ka aan tagno. 4 hour-ka markaan tagno insha allah lacagtan iyadana waxaan ku sameynaynaa waa taxliilin doonaa. okay bal aan isla fiirino marka lacagtan maxay samaysay dhaqaaq aad u wanaagsan oo fiican ayay samaysay. waa kana buy ayay samaysay, dhaqaaq fiican ay samaysay. okay markay samaysay dhaqaaqan maxaan sameynaynaa trade line-keena ayaan soo qabsanaynaa. bartaas ayaan kasoo qaadaynaa trade line-ka. bartaan aan iraahday cafwan trade line-ka ayuu bartaas inooga soo qabo.
bartaas aan dhiganaynaa trade line-keena. Trade line-ka ruleskiisa casharo hore ayaan kusoo qaadanay. waxaa la rabaa hal week ilaa iyo week kale 2 week iyo inka badan inuu ku taabto. markaas kadibna trade line-kaaga wuxuu noqonayaa trade line aad u qurux badan oo waxaa waaye taxliilintaadana ay aad ugu wanaagsananayso insha allah. midka kale inoo soo qabo trade line-ka kale asna bartaas ayaan dhiganaynaa insha allah. isku qabsanaynaa bartaan ayaan ka qabanaynaa asna. okay bal aan fiirina marka lacagta. muhiimadda waxaa waaye trade line-kaaga inuu taabasho koowaad taabasho labaad uu ku sameeyo. meelaha ugu taabashada badan waad ka sawiran kartaa. trade line-ka dhexdiisa ayaad waxaa ku samayn kartaa. trade line kale ayaad kusii dhex sawiran kartaa. it's not big deal. laakiin muhiimadda waxaa waaye inaad fahmi kartid patterns-ka iyo jadwalka suuqa uu ku sugan yahay. okay meeshan waxaa kuu muuqato trade line-kaaga in la jabsaday oo kor loo jabsaday kadibna lagu soo laabtay. okay markii lagu soo laabtay maxaan sameynaynaa meeshan waxaa laabashadan lugtan salka ah waxaa sababay double top ayaa sababay. saas ayay usoo daadatay. bal hadda aan fiirina xaaladda hadda ay ku sugan tahay waa xaalad noocee. lugtan dhaqaaqda ayaan cabiran doonaa. fiibka ayaan isticmaalaynaa. bartaas ayaan ka qabanaynaa. waxaan saaraynaa barta ugu sareysa cirifka. kadibna waxaan samaysanaynaa waxa loo yaqaano golden zone ayaan calaameysanaynaa. golden zone area inoo calaamay kadibna inaga tuur insha allah. kadibna yareyso trade line-kaaga oo habayso. golden zone area waa ujeedaa maxaa lagu soo sameeyey waa lasoo retest gareey. maxaa filay marka suuqan inuu dhaqaaqo insha allah ayaan sugaynaa oo meel fiican ayuu taagan yahay uu ka dhaqaaqi karo. okay time frame-ka ka yar aan tagno marka. time frame-kan midka ka yar aan tagno si aan u xaqiijino waxa aan sameynay inay yihiin wax sax ah oo inoo diyaarsan insha allah. waxaa ujeedaa retestigii bartii uu kusoo sameeyey inay noo saxan tahay. retestigii bartii uu kusoo sameeyey waa kaasa golden zone-kii waad ujeedaa. trade line-kaaga waa lasoo jabsaday wuuna kuu saxan yahay. trade line-kaaga aad ayuu u qurux badan yahay. waa ujeedaa soomaan taabasho koowaad taabasho labaad taabashadii saddexaadna waa la jabsaday waa lagu soo laabtay haddana waa lagu soo laabtay mar labaad. then hadda waxaan sugaynaa insha allah inuu barta tan ka dhaqaaqo uu aado buy. isla fahanna soomaahan. targetkeena marka inteen ka dhiganaynaa. targetkeena waxaan ka dhiganaynaa insha allah. targetkeena koowaad bartaas ayaan ka dhigan doonaa oo waxaan ka filaynaa insha allah inuu soo sameeyo uu soo taabto barta tan inuu soo taabto ayaan sugaynaa meeshan uu soo gaaro. marka waxaan sameynaynaa lacagtan bartan ayaan ka raaci doonaa insha allah. golden zone-kan ilaa iyo waxaan la socon doonaa bartaas ayaan la socon doonaa insha allah. ilaa iyo bartaas ayaan la socon doonaa. lacagtan iyadana hal ilaashado insha allah. janis aad u wanaagsan ayaa ku jira. waxaana sameynaynaa ardayda ayaan waxaan kula soo wadaagi doonaa groupka qaybta signalada aan kusoo dirnay insha allah iyo setup-iska IDS-ka. marka lacagahan ku darso watch listigaaga isbuucan janis fiican ayaa ka banaan oo buy ah. marka insha allah laga faa'iideysto. lacagta xigta waxay inoo noqon doontaa GBP/CHF iyadana waxaa ka mid tahay lacagaha aan weegan rabno iyadana inaan trade gareyno GBP/CHF. okay 4 hour-ka aan fiirino GBP/CHF. markaan fiirino 4 hour-ka insha allah waxaa inoo muuqata iyadana GBP/CHF aan calaameysana insha allah. trade line-keena aan ku calaameysanaynaa. mar walba calaamaysanaysa lacagta zoomka waa la iska yareeyaa si ay kugu qurux badanaato. waa calaamaysan doonaa. trade line-ka aynoo soo qabano. okay ilaa barta inoo dhig trade line-keena ilaa bartaas inoo dhig trade line-keena. okay another trade line noo soo qabasana ilaa bartaas inoo dhig. waxaa la rabaa trade line-kaaga laba taabasho ka badan inuu kuu sameeyo inuuna kuu qurux badnaado. okay meeshan waxaa inoo muuqato trade line-keena wuu inoo diyaarsan yahay. waa kaasi qurux badan aan u saaranay. waxaa muuqato trade line-keena inuu noo diyaarsan yahay. touch koowaad touch labaad waa ujeedaa soomaan si qurux badan ayuu sameeyey.
taaj koowaad taaj labaad si qurux badan ayuu noo sameeyey. Okay, inta maxaa waaye ma soo taaban soo maaha, muusan soo taaban. Marka waxaan sugaynaa insha allah lacagtan waxaan ka expect garaynaynaa iyadana aan ka filaynaa insha allah waxaan ku taxliilsanaynaa powerka. Waxaan ka filaynaa inay inta noogu sameyso wax loo yaqaano double bottom ay bartaa inoo soo taabato kadibna ay bartaa gaarto. Markay inta soo taabato ay bartaa soo gaarto inay inta kusoo laabato ay soo sameyso wax loo yaqaano double bottom kadib bartaa ay gaarto ay kadibna waxaa waaye insha allah waxaan ka filaynaa in ay waxaa la yiraahdaa dhaqaaqaas aan ka faa'iidaysano. Haddii ay noo jabsato ay kor aadana waxaan insha allah ka sugaynaa inay meelaha retest ku sameyso kadibna waxaan usii raaci doonaa buy ayaan usii raaci doonaa lacagtan jaaniskeeda iyadana buy fiican ayaan ka rajaynaynaa inay sameyso. Sidoo kale haddii ay soo laabato ay bartaan kusoo laabato iyadana waa jaanis kale oo aan ka raaci doono buy aan ugu raaci doono. Sidoo kale iyadana waxaad sugaysaa markii ay soo jabsato double bottomkan ay bartan kugu sameynayso inay retest meelahan ku sameyso kadibna ilaa inta selkan aan soo qaadano oo iyadana waxaan ka filaynaa labadan qaab ayaan ka filaynaa insha allah. Laakiin jadwalkeeda guud lacagtan waxaan ka rajaynaynaa inay sameyso amaba aan ka helno maxaa la yiraahdaa jaanis buy ah oo waxaa waaye insha allah ay inoo soo sameyso sida aan anaga rabno oo buy-ga insha allah. iyadana waxay ka mid tahay lacagaha aad ku ilaashan doontid maxaa la yiraahdaa trailine watch listigaaga aad ku ilaashan doontid ayay ka mid noqon doontaa. Okay, lacagta xigta aan fiirino insha allah. lacagta noo xigta aan fiirino. lacagta noo xigta waxay noqonaysaa NZJBY. NZJBY ayay noo noqon doontaa lacagta inoo xigta NZJBY 4 hourka markaan ku fiirino iyadana insha allah dailyga waan soo dulmari doonaa. Okay, dailyga aan fiirino. dailyga waxaa ujeedaa inay sameysay double top ay soo sameysay. sidoo kale 4 hourka aan fiirino marka iska caddahay lacagtan waxaa kuu muuqata W pattern wax loo yaqaano ayaa kuu muuqda. W pattern-kana waxa uu ka mid yahay waxyaalaha reversaliska oo double bottomka ku imaado, double bottomka ama double topka. meeshan waxaa ujeedaa lacagtan inay sameysay wax aad u qurux badan ee loo yaqaano iyadana double top. wax aad u qurux badan ee loo yaqaano double top inay sameysay ayaa meeshan nooga muuqato. aan calaamaysano bartaas ilaa iyo bartaa inoogu qabo waxay sameysay. maxaa ujeedaa double top aad u qurux badan ayay sameysay. waxaan ka filaynaa lacagtan insha allah iyadana inay noo soo daadato insha allah. ay soo daadatay inay retest sameyso ay ku laabato bartaan ay soo daadato. Okay, another trade line soo qabso si aan taxliilinta aan ugu fariisino sida anaga aan rabno si aan u ogaano. Okay, qadka xoogaa naga yara culus I hope inaan sugno. soo hourka nagay lacagtii ugu dambeysay insha allah waxaan filaa shantaas lacagood inaad watch listigaaga ku ilaashan doontid waadna ka faa'iidaysan doontid. waxaan filaa jaanis si fiican oo wanaagsan isbuucan inaad ka heli doontaan. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa ardayda qaybta garsoor qaybta signalada iyo setups-ka aan kusoo dirno. saad la socotaan mar walba anaga waxaan diyaar u nahay inaan caawino dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan maxaa la yiraahdaa barashada cilmigan. qof walbana waxa uu u baahan yahay inuu wax badan ka faa'iido. marka waxaan mar walba heegan u nahay garsoor ahaan in aan dhalinyarada caawino aan ku caawino wixii anaga aan ku dhaarno aqoonteena insha allah. bal insha allah aan sii wadano lacagtii taxliilinteeda aan sii wadano. trade line kale ayaan sawiranaynaa. trade line-ka waxaan ku dhahay ruleskiisa waxaa ka mid ah inuu kuu qabto laba cirif iyo ka badan inuu kuu qabto. waxaan kasoo qabsanaynaa trade line-ka bartaas ayaan ka qabsanaynaa. qaabkaas ayaan iskugu qabanaynaa insha allah. barta xataa waa ka qabsan karnaa. uu qurux badnaado cirifyada afka ayaa u saari doontaa candlekaaga trade line-kaaga aan idhaahdee. dan markaasaan u sawiritid zoomka ka yaraynaysaa. waad ujeedaa si qurux badan ayay lacagtan trade line-keena noogu qabatay. kana cirifka afkiisa saar. maasha allah ay noo sameysay. Okay, meesha maxaa nooga muuqdo waxaa inooga muuqdo ascending channel. waad ujeedaan Soomaali
ascending journal ayaa meeshan kaaga muuqda ascending journal okay sawiro trailanka waxa uu ka mid yahay waxyaalaha aadka u fudud qofkii fahmana uu ku samayn karo lacag aad u fara badan uuna ka faa'iidaysan karo ascending journal kaaga sawiro waxaan sugaynaa ascending journalka intay kasoo retest garaynaysa lacagtan okay marka waxaan ka filaynaa inay lacagtan samayso janis aad u fiican meeshan ka muuqda aan isla eegno marka janisyada meeshan ka muuqda wuxuu yahay janiska meeshan ka muuqda lacagtan waxaan ka filaynaa bartaan hadda ay marayso si fiican u fiiri maskaxdaadana fur barta hadda ay kuu marayso waxa waaye waa trailine korkiisa ama resistance trailine markay maraysana waxay samaysaa lacagta haddii ay meeshaas ku samayso ay ku gaarto correction inay soo daadato sidoo kale lacagtan waxay kusoo samaysay double topkana waxa waaye dhaqaaq fiican ay sameynay marka waxaan filaynaa lacagtan insha Allah inay soo retest garayso ay samayso dhaqaaq la mid ah barta inooga soo qabo dhaqaaq la mid ah ayaan ka filaynaa bartaas insha Allah ee bartaas inoo gaarto qaabkaas inoogu samayso kadibna ay inoo soo daadato ilaa bartaan targetkaagana waxaa dhigan doontaa ilaa meeshaas ayaa targetkaaga dhigan doontaa insha Allah targetkaaga labaadna haddaad rabtid ilaa bartaan ayaa soo dhigan doontaa lacagtan iyadana waxay ka mid tahay lacagta aan isbuucan rabno inaan ka faa'iidaysano marka waxaad samaysaa ku ilaasho waitlist-gaaga markii ku siiso maxaa la confirmation aad kusoo raaci karto waxaan kusoo diri doonaa qaybta signalada iyo setup-iska insha Allah waxaan idin dhigi doonaa maxaa la yiraahdaa groupka telegramka ee publica ah qaybta description-ka ee YouTube-ka insha Allah si aad u heshid taxliilin iyo maxaa la yiraahdaa fikrado iyo signalo free ah fadlan nagu soo bir waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ku caawino oo aan ka caawino wixii aan kugu dhaanno insha Allah waxaan idin rajaynaa guul iyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadaan ugu mahadsantihiin daawashadiina fadlan si aad u heshid casharadan iyo maxaa la yiraahdaa taxliilimaha iyo isbuuc walba forecasting aan samayno ama saadaalinta aan samayno fadlan kusoo bir page-keena YouTube-ka aan soo gelinayno isbuuc walba taxliilinta aan samayno iyo maxaa la yiraahdaa saadaalinta aan samayno si aad u heshid sidoo kale waxaad kusoo biri kartaa telegramkeena wuxuuna aad ka heli doontaa ama aad ka heli kartaa qaybta description-ka hoos insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi